asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. haddaba muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay odaygan halkan idinka muuqda. saad u jeedaanba wuxuu ka sheekeynayaa sheekooyin kusoo dhacay, iyadoo qaarkood ay kaa qoslinayaan aada la yaabi doonto, halka qaarkood markii uu ka sheekeynaya aada la yaabi doontaas odhanayso talow markaas ma wuxuu ahaa qof waalan. haddabaan isla dhegaysano sheekada koowaad. inaan dhalinyaro ah dadka waxba lama magacaabo inaan dhalinyaro ah waxoogay Dubai buu ku yar maqnaa. hore waan uga sheekeeyay ninka, kadibna waxoogay suqudunihii dalka la yimid, saaxiibadii baa soo dhaweeyay, guri aroos oo markaa 40kii ku jira ayaa loogu qadi sameeyay. aad baa loo soo dhaweeyay dhalinyaradu maanta isu jeceshay. kadib markii la soo dhaweeyay wuxuu yiri war bal xakee qaaliya wallahi barta saafiga iyo meelaha gaafanayo aduu ina geebaa leeydi goob baa laga soo qaatay qaad noocan leela daba musbaarka. waxaan ku qaslay daba musbaar oo nooc daba musbaar la yiraahdo miyaa jira qaadkana, bal haddaan isla dhegaysano sheekadan. waa intan dhexe markaa waqtiyada ragii nin iyo kiilihiina qaata waa nin lacag haya markaa. hase ragii markuu yartay 6 kamid oo isneef ogol ayaa la isugu soo haray guriga arooska. hada jeer gelin hore sheekadu way socotaa, ma taqaana jixda la guraa, saacado dambe la isla xayilaa, marka dambe aamus sidii riyo ma taqaanaayo xaslay ayaa loo dhaqmaa. hase goor dambe uu inankii oo dasho qaadka ka raago 6 sano dalka ka maqnaa ayaa markuu nus marayo kuleyl dareemay. wuxuu yiri waryaale rugby ishu ka sheegay dibra baraarahoodii waniyo dabba la isulay buu waxa la war qaadkaad ka raagto ordo meero xamaam ku galay biyo showde dabayshu babsayo taangiisana ku jiray ayuu barta dhakada iskaga furay. hada jeer qofku markuu markaas ama kuliyay biyo cagaha laga soo bilaaba dhakadu iskaga shubay inuu ku wareeray. markii wareey shaar buu soo qatay, gamcuhu soo galiyay dusha uu ka soo baxay guriga maxla xamaamkii. halkan daarada guriga laambad weyn baa ku xiran, 5 dumar ah fadhiya. gabadhii guriga lahayd habariyarteed intii la shaqeynaysay qaar soo wareegay weelkii dhoobada inankan maanta lagu macsuumay way masaxayaan mariyana way taaweedaynayaan. inankii soo de wixii ba banaanka dhigay ayuu ka soo baxay. dadka dumarkii oo naxay oo shoogay ayaa xagga gidaarka u weejiistay. dareen wuxuu inankaasi iga sheekay wuxuu waxaan maqlaa iyagoo ixamanay waxay leeyihiin miyaanu inankii maanta ahayn, miyaanu inankii la macsuumay ahayn, maxanuun baa u qarsaday. hada waad aragtaa intaas markay islaadan baan guriga galay. hase marba ku qosla wallahi asal ma warqay waa maxaa dhahay waan maryahaagi ma ismu inna la wariya wallahi xamaamka ku soo ilaahay buuri mu oran bal marayaro kale saaray wuu noqday. hase dumarkii uu sii maray xaqoodu eegay wuxuu yiri excuse me please iga raali ahada walaal mar dhaw toona anigu qaban baan idin hormar ilaahay ma kale u qaaway. nin la oran jiray Balayo oo dadkii koonfurta ah askarta ka tirsanaan jiray gumburaha ayaa wuxuu ii dhiibay qaad uu soo dhacay. qaadkii buu yiri iibi, anigana joolis baan qabo inaan caana cabaaba gumbura leegeeyay bariga deegaankayga ku ooli jiray. jaadkana waa laga soo fogay, jaadka waxaana laga fogeynay dama wixii asaas iyo hilib iyo wixii kale oo dhan, laakiin qaado ugu daran ayaan meeshii ugu tagay. aagada caanaaba markaa la keenaa oo aan cabaayo in loo baan lahayn oo geel igu bedelaa. xabaadana ku dalay habeenada kamid ah ayaan qaadkii fara badnaa oo maqaaxi xadiis ba laga akhriyo maqaaxida oo ay tahay ma taqaanaan dadabtii aan fadhino ayaa dhinacana laba qoriyo xabaa waaweyn ka saaray, dhinacana tiigii ba iga yaala. kadibna show waan waday tiradii habeenka ma cayim karo qaadkaas waxa kaayada rag badan marba godladana u kacaan. goor ay tahay 3 galabnimo dadka si kala rawaxayaan ayaa waxaan damcay inaan kaadi tago. kadibna waan dhaqaaqay. waxaan dareemay markaa yani jabaqda dadka kaadida kala fogo waan waxooga yar lugay. wuu arkay ninka gumburayo iyo bilgood intay isu jiraan banka bartankiisa markaan marayo ayaan kaadida u fadhiistay. waan markaas leeydhay ku dhacday. markii aan kacay baan magaaladii u eegay mise tiriigtii baa ka haysa. waxaan ka socdaana ugu yaraan 7 kiiloomitir ayaan markaa magaaladii ka lugay. dabeetana waan soo noqday maqaaxidii oo la rabuxinayo oo alaabtaydii niisuu kaaga jamaanay. wuxuu yiri xagaad qabatay? waxaan mid halkan lacagtii qaadka ka soo qaadanay. ninka lacagtii qaadka inta lagu ma maqnaade xagaad ku maqleen? sababta goorda baan ku wareele waan marqaamo kulligood
horta dhibaatadiisa koowaad taasay taasay talabaad raacda iyadoo way iska muuqataa wax weeyaan habeenada ka mid ah iyadana qaad leey dhiibay qaadkii anigoo iibinaya ayaan deetana mirqaankii horta wax weeyaan waa waaliyo marka aad xad kala dhaaftay qofkii mijiin 2 3 4 u dhaafana ayuu mirqaankan la sheegay imanaya waa haddaba mirqaankan waa maxay marka la qayxo ilaahay libid buu ugu tagay maskaxda dhiigaaga inay ku dhacaan dhiiga xawliya ayaa kacayo dabka iyo shaaha kulul iyo nidaamka isbedel baa kugu imanaya marka maskaxda fikir kasta oo ka iman jiray oo ku meel marisay qalad buu kaaga imanaya sida qaladka ragii horta waxaan tiriyay ilkayga hoos ilkuhu man tiriya 7 midhow ma ka dhiga Soomaali dabatana 3 nin ama 4 nin ila fadhiyay hebelow ilkaaga hoos waa imisa ma soo nin walba gacanta saarada kawla wali warniyo warkuwan aqli malaha anagoo daanyara baadhana waa bila aqliye afkana maxaa adiga maxaa 7 ka dhigay kalbadii triga aan ku sameeyay ba taala xabad ilkihii kamida ayaan bartii kaga bilaabay gag waan buriyay sida runta ah markaan xabadii iligi buriyay horta marka waxa xagii wareysay in awdii baan ka saaray bahal sidaas aan ugu waday waxa ka fartayda halka kala jaxna bacdi gashay markaas kalbada ku bilaabay markii daba maxar baan la doontay sida runta ana ilkaha waxay ahaayeen ilkiya carra mara miriga dhicmaan siri hadda ilkayga saasi 60 mid ku dhan yahay laakiin iligi maalintii aan la burburiyo ka saaray wax badan ku wadaatay hadda way muuqataa waxaan daatana ku dhacay barkad baa markii dhiigi istaagay iligi saaray xinjiriga yimaadeen ila xoog baan ku kululay ayaan barkad galay barkadii baa daatana qaskaygu joojisay hadana xabad irbada baa leeygu marka barkada mood ku dabaalanaysa waxaan sii dhiig ku qabo barkada kale waana salaada was qaboojinaysa sarunta ma maalintan dhibasho ugu dhawaayay aan ku baqtiin barkada dhexdeeda laakiin waxay lahayd birahan loogu xiro hiisha loo dul saaro kaasan qabsaday marka gali ciidina arkay ilaa dirqi salan kana gurgud ba kaga soo baxay horta mirqaanka dili gaarayna kamid buuha waxaan see iligi dareemay 5 galabnimo markaan toosay aan carabka sidaa idhi ee meeshaydii banaan arkay ayaa warwarka iyo afkaygi bishilna iyo farxumada maanta igu timid markaasaan dareemay waxaad jirtaa habeen aad mirqaantay sidaan sheeko ku maqlay oo aad istiri muxuu ahaa yar jimicso way jirtaa la amay cararto way jirtaa runta waana sheeko xaqiiqo dhacday barnaamijka xogogaal baa laga sheegay muxuu ahaa jaraa'idii loorin jiray xorriya ayaa lagu soo qoray calaamadaheedii baa iga muuqday marka ilkaha maanta ay xidhanay way ilkii habeenka iga daatay 2 feerood baa jabay 9 qodob ee wajigayga imika ku yaala ayaa habeenka la tolay habeenka qaadka waxaan la iibin jiray markaa nin Allah yarxama caawina gooseeya abdiyeetiya loo inta walaalkay buu ahaa dhawaan buu dhintay markaa waxa ka iibsan jiray qoliyo madaxtooyada iyo dad noocaas qaad fayaan loo oran jiray buu aad u kulul 30 mijood bay noo dhig haseeshe nimankii meel kale qaad ka qaateen si uu yeelan buu lacagtooda bari waan ka qaadayaa 30 ka mijood xareeyo 2 mijood bay gala baxay sidii baan ku tagay waxaan tagay siinay xaafadda oo cidla marka habeenimidkii 2 habeen hore soo jeed qadran waan seexday goor duhurkii ayaan soo toosay video ni loo oran jiray 16 baan imid qolo meel bariis iyo wax ku cunaysa waanu imid bariiska waan la cunay waxaan sili bas bariga ma jirin iska laweyn oday kaliya loo jaab ayaa bas keeno kolba dhinaco isaguna mu badnayn waxaan damcay markaa inaan caleed iskiir jiro 2 mijood jaada meesha ku cuno hasee shay musalsal bii charge markaba diqsinimo ku ridaya waxa ku ridaya ma taqaanaayay shay kasta oo aad hawlood lahayd uu ka fariisinaya ama shay kasta oo meel labi hadaad haysay oo markaa qaad cunto tusaale gabar baabada fadhida waa qaad nin xaraareysan baa u imanaya wax yar oo hadda inta amaana aad ku aatay ama hooyada caanay hadba jabada ku haysta na walaal mijina ama way u diidaysa na laba siibaad oranaysa ila maal ku faxay dadka qaadkii baa waxa niman ila joogay 12 mijood jaada baan ka sii markaba deeqsinimada ugu bilaabay markaan laba cunay qaadkii 8 iyo 10 mijood oo fayaana ayaan halkii kurka kaga gooyay kaliga ilaa labadii duhurnimo ilaa iyo 8 iyo wax la markaa ama 7 iyo barkii meelaha kadib markaan soo baxay dareenkaygu wuxuu siiyay 92 October baa ahayd 17keedii wuxuu siiyay inay dhaxal jirto markaa rayigii saliimka ahaa ee maskaxdayda ka soo burqanayna wuu lumay oo 18 mijood baan cunay waxaan ordaano waan ahaan jiro sports ko mar dameereer baan soo aad baan u dheerin jiro orodkayga
kadib waxaan maskaxda igu soo dhacday waa dhaxan waa inaad sii go'laysaa ilaa iyo xaafadii hoose Axmed Guri hase yeeshee intii aan lugeynayba 200 oo mitir oo dalacada siinay meesha la korkeeda ayaa waxaan xasuustay bari eeyda dhingada shalay aan ku qaadan jiray aan ku dhufan dheeriijay 5 kii dameereergan waxaan dabeetana sameeyay bal inaan waan daalay waan si markaa ay maskaxda soo turtay bal orodkaagii barigii malaa waa deeqaadka ku dilo waad gaboodiyay bal caawad tijaabi baan siin hase yeeshee xawligeygii markaan iska qaatay codad soo baxaya baan maqlay asiib darra waxaan arkay labada koonayaasho sigaar cabayo dab bay weeraafinayaan ila waa maskax mirqaanto aan taydii saliimkeeda fiicnay joogini mid qaladaan ku shaqaynayaa waxaan si labadani way kala fogeeyna dhaxmar najaxo nin shaal xiran koorkaaga oo eego buniya ayaa labada nin u dhaxeeya shooq labada ninba nin shaal buniya xiran ayaa madow wuxuu baan ka fikiro wadada hadda koro uga leexto waa jabay labada nin dhaxmar kiiba ku dhacay dhaxay qadaadkaasi isku taagay وشيء وطدا سي ساعتنا دغتا سي ول قمويديبا 9 leer oo kala kaan aniga ma laha iga baxay ila 9 ka qodob baa halka ilaa halka xiribteeda ayaa dilaacday laba feeroodna way jabiyay laakiin feeray waxa moogi sacbada inta ku cararay ayaan kada loobsaday ninka agtiisi labadii nin intay wadada hareeraha uga boodonayna xeen ay leeyahay Ibrahim war maxaa kugu dhacay dabadana ninkii odaga halka ka taahay qudcur baa markaa waa qudcur magangooyo tariigna waa ka soo baxay hase yeeshee maskaxdu waxay ku lumaysaa oo aan madow baad carartay iyo wadada miyaana god leh waxa soo dhan mirqaankan bay ku lumaysaa mirqaankuna sida runta waa wali la jideeyay yani qofkii wuxuu qarinaya waa waashay kadibna waxa dhacday labadiiba bureed bay sitaan waan u fiirsaday waan eegay war Ibrahim bay ilaa ka sukay imoodaya ninkii la socday waan ka talaabsaday ciribtan ku dhuftaano labadoodii nin waxa la weydiiyay ninkii baa qaaday waxay yiraahdeen ninkan jimba dirday waxa ku dhacay baa la yidhi Saciid bin la socday waxay dadkii ka dhaadhiciyagu ninkan jimba dirdiray bay yiraahdeen aniguna xawligii waxaan ku galay maqaaxi Allah raxmah hayste gabadh loo jeexay magaalo dhexda shaarka iskaga sii xiray markii aan dareemay waxaan si dhidid waxaan ka badana waa maxay waxaan ogaaday inuu madaxii kala dilaacay kadibna shaarkayga bixiyaan oo urday hadana shaar ku xiray shaarka jingada halkii laga furay dhiigaygu halkaas oo kale ku dhacay markaa habeennimadkii markii la tolayay ee la ilaaha ma taqaana war yaa ku dilay ee dadku xashada ma khamro waxaan weligeeba arag iga urinayeen ana qaadka weligeeba la ima dhaafo laakiin soo runta qaadkaas dadka marqaanka la sheego ugu badan ayaan ahaa waxaan ku yiraahdaa ninaan cidi dishadeedaysa ana ninkan jiray inuu go'ay baan u mareynayaa على تحل واحد سوق هذا نكي بقى نختار la keenay oo aniga caawadan ilaa yaabana laakiin la tolo marka la iga qaaday waan isweydaarnay waxa ninkan maxaa ku dhacay jimba dirdiray beeladan halka ku dirdiray dalacada siray imsadii ahayd todobadii barkii ahayd sidaas ordo ninkii subaxii ayaa habeenkii waa la tolo madaxa baran waan sunin anigiina waxaan imidin feeri baa ay burburay kadibna waan sunin waxa la yiri ninkan ayaa ana ku jiray wuxuu arrimaad sheelinay aniga jimba dirdiray oo raad ergat kaasna horta marqaanku ka soo haa marka goormaad isku soo dhacdeen adiga iyo ninka aniga ninka waxaan isku soo dhacnay isagana sawirka eega sreeyga halka xasan cadde uu joogi jiro goobtaasna isku nimay iyadoo aniga feeraa la sawirayo marka ninka goormuu xaqiiqsaday marka inaad adigu jeelin ninkii uu xaqiiqsaday in aabaha saaxiib ahayn buu haastaa runta ah wax badanna muu noqonin laftigiisa oo halka wajigaayuu isagu dilaac ku yeeshay halka qadaadkana waryar buu ku yeeshay in saruntan in faam lahayna wuu ahaa oo aad baan soo aqoonsanay markii dambe laakiin waxa dirqi laga dhaadhiciyay ninkan aad jeelay ana jeelay laakiin adigu markii waad soo turteen ninka markii waan jeelaa waan ogaa halkaas oo waxaad moodaa inuu mirqaan ku weeyay yaraaday duqadii azuaka oo maada dhalinyaro ah oo gel jira waliba aha ayaa soo muddo qaad ka maran qaadku wuxuu kugu dilaa markaad waxoogaa ka maqan tahay ee dabatan maalin aad bilowdo waliba qaadka habeenkaas soo haray hadaad cuntana mirqaan siyaada abulaha kadib wuxuu ku qaylay tuulayar bambay ku taala kadib uu ka lugay show reerkiisu wuxuu jira kiiloomitir yabad laakiin mirqaankii labada mijoode baarixiga daamir ugu cunay awadii ayuu soo 4 kiiloomitir jaray u dhaafay reerkii u dhaafay reer kale oo aan qoyskiisii ahayn ayuu galay ma gurigi assalaamu calaykum gabar baati wa calaykum assalaam waxay agtay nin bulshada ma taqaanay dhigidsan soo lugeeyay dhibaataysan diifi ka muuqato waxay filaysaa inuu ama baadidoon ama su'aal weydiiyo laakiin hadal kama mu sameynay halkan uu ku tuuray 2 kiilo sin kuru soo go'a ku quntanaa
shaarkii baa la baxay haan halkii gadaan ka suray soonkii buu la baxay yacaygu ku tuuray dabkii buu israaciyay waabu ololiyay fanuuskiina wada lacday gabadhi waxay u faahantay markaas oo ilaahay diruuc ku ay mataqaanay u garatay inuu ninkii in ay Cumar jaarka ahayn nin waa shay inuu yahay markaa hase midba ka sii darantay wuxuu sameeyay digsi yaro faraacada ayaa ninka halkan loo dhigay wuu qaaday dab ku saaray wuu diiriyay wuu ka jabqiyay fuudkii buu ka miiray wuu aagaagay dinadabadeeda waxa laga soo nastaabisada ayaa halkan caanaha odayga galgalay loo dhigay loogu bedela kii wuu la soo daadegay wuu ku darsaday wuu iska cunay gabadhii yaabtay haddaad waa shabiila ku dila ma ilmahaad la boodaa ama kaaliya ilaahay ayaa u keenay gabadhii waxa kaga daray mar allaaliye markuu deyntii lagu sii fadho wuxuu xoog bad ilaahay u dhiisintay de kulay nin qaylan oo adgalasa markaankiisu xogtii yareed ba hayso de waxaan ku leeyahay xaje kale waa maagan yahay halkii uu dabatana isiri in biyo kuma filay yara meeradee aan xogaa dhiidka laga waran de ilaa waxaaskiisi waxba ka qajin maayo wuxuu iska laabalooda dufaniskina size yar gudbay hal yar ayuu tashti halkii yala soo qaatay kulligii shaahi ka dhaqnaqay taasad CBC halkan haan biriya saaran buu kaga shubtay horteeda gabadha islaameed ku maadhay halka markii xajada maray gabadhay naf la baxsatay xoogayna waa diyaar garooba sabisir waa ka dadna carartay way carartay gurigiisii way tagtay laba yar walaaliyiin iyo aabiye baa ardaago hutageel war ka kaca ninka Cumar waa shay soo galay waa odayga caniyana uu ka cabay waa cashadii yareed uu ka cunay waa hortaydii uu ku maadhay waa la soo baqash ilaa odayga ilaa reerka waa gabadhi soo saartay ninkii oo halkii baa markuu daa u maadhay ayuu soo soo gabadhi gooshii ay ka kacday ay iska fariistay cadab iska qadqaq واستمر قاسي وليس موجة إلا إمك حتى عروتي سنة عروتها كفر بنت قاربة تعض وكسر ضعفه وحتى لين مايو يجي مايو أنا بتنقول قلت له ما خلاص صعنا بتنوح السمية وكايابي هي ده حرزين دودي يستاج حاجة كله يستاج حر عرض وكاج بالعوسك وكاج وصافرست وفكرة ونيما يو هذا محاد قصة ما يسيق بدي كاجت يالكي كوسي بيسوي كويدرت يا وأنا طول ما تشعيد ود بالكل ودي أنا شيء تستيسيه قبل ما أنت هسيك عرض وما قريت معد بكو قبصن لهاي نيكو يا بامبي تيسي سهر قش وهرياها محا كولعي ما محا كولعي يا باي عارك حاجة نقبتي إلا حرارة باقي وأنا باي على شارك جورج بس ما تبغى كير عثمان شيء عثمان كيف كبرت كيسا هلا تلاقي عيبوبي ما هي ما بهاك جرى كي يقص بها تمسك الحاج ما بهاك يعج هانت يقص تدش يقص السون كي مصدق وإنه واحد يسوى مريها لهم كورس صدق كان كده قصده أيوة لها وإنه نك عشتي وكعناه وعني أنا وكعبي وقردنا لا كايا أرتفع عصاد علي جاي كذا إنه قضية ما إنه يركاله إنه صباحي إنه قضية إنه عقارية واحد يلبس كعب منك تتما أنت بشوف كيلو وكانه بد بيجريني تتلقى قردم بقى أيوة شوف معويس نوع لوسوي بيدين أنت والجاي دي بهالحين تتم عويس برندائي دشاري عمامدي شواني دهايدي كوفية سنتشبه على الله حرام مركي اللي يرد داود جاي كيلو لولي شو حوست إنك جوجو يدا عنا قردم بوي السجال كي بركي مقاحيك بكعب بتشيل كوب بثلاثة ولا روى سكتي تليه هل كان يرجس هذا هالقصة لغير بحي كان أنت إلى قلنا مركض شوكتو واتوضد إني أوت كلا بعده هل كان مركو مريو أيا دشوا فريق مع وستي يسون كلا سيبتين معويستي بهوصل العضي دبتنا وحن بيسوي واحد في ذا دايره شات كد بعض عن العكس لقى شيء معويستي وشو بنانكو كره عبد الرحمن كالين تابرجي لفره بهيدا حول يفره نمكي بمك هي وهرمره السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله يا ابو الرمل نبض خير ولي اسمه سي هذا العجل عبد الخالق سر بفاش يابا شو يا سيدي سي حق لو ما شاء الله حق معويستاوي سوساوي أودك أنتوا الحي أيوة الله هذا ما تيجوا عليه هذا إن قادوا نسلها كسيجل يا رجل قريب ما لا عن كل حيوم عويستي سيبتين والله واحد في دامد قادوا عكت يجي الشنو يمود يبولي وبين لك والله راعي ومعويستي هذا بعورت الوضع اللي يحكي الله في عصبة بعد اللي ولي كنت الله ين كنت قاعدة أيها لك السوق هذا